waxay damceen oo isku dayeen inay ka qaraabtaan xeebaha iyo deegaamada isaga dhow Puntland iyo Galmudug iskaashi baan ka samaynay aragti baan ka yeelanay saaxiibnimaan ka samaynay waa col waa dulli dalka in laga xoreeyana waa banaanta gudoomiyaha degmada Garacad taliyaha dekedda Garacad taliyaha isku dhafka taliyaha saldhigga Gaalkacyo Galmudug Caliyare iyo taliyaha saldhigga Afbarwaaqo iyo midka Garacadba gudoomiyaha Afbarwaaqo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan ka bacdi intii asbuuc ah isbahaysi aan kula dirirayno burcadbadeedda ayaan ku soo jirnay ilaa galhagoog ilaa aan mudug ka bixinno ilaahay baa ka mahadsan oo ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan waa ka bixinnay gobolkii mudug waxaan rabnaa burcadbadeeddu iyo shabaabka iswad baa la dhahaa kulligood waxay ka shaqeeyaan wax diinta islaamka ku samaysan kama shaqeeyaan waxay isticmaalaan dhaqan midka ugu xun oo bilaadan ugu xun oo bilaadan isticmaalaan shabaabka meelo badan bay iska leeyihiin dhaqanka loo dullaysta dadka isaga mid bay ka yihiin dhaqanka waxaan leenahay wax la soo dhowaysto iyo wax lala macaamilo iyo wax lagu hindiso midna ma ahan dadka waxaan u caddaynaynaa gobolka mudug inuu bahalkaasu ka baxay laakiin qaybaha meel ka mida Puntland inuu ku jiro war waxaan leenahay ha macaansanina iswad baa la dhahaa shabaabka iyo ayagu waa isu nuuc dhaqan xun iyo waa dhaqan dooriyaal weeyaan waxaan leenahay ka saara xeebaha ay nimankaas ku hakadeen ka saara meelaha laga fuulahayo waa Puntland meelo ka mid ah ka daaya walaalayaalow ku soo duula qabta haddaa qaba ka dhan waxaan rabnaa in laga suuliyo waddanka waxaan ku jirnaa jihaad waxaan kula jirnaa qawaariij galmudug ahaan annaga dagaalka aan ku jirro mid labaad kuma dari karno walaalayaal saaxiibadeen waxaan rabnaa inaan la diridhaan burcadbadeedda oo qaybtiina qaadatiin adinku oo aysan mar dambe ku soo gudbin xeeba aan leenahay haddii ilaahay idmo haddaad tihiin Puntland waaye saraakiishiinna iyo madaxdiinna waxaan idinkula dardaarmaynaa inta aan qawaariijta ku sii jeedno shabaab baan ka saaraynaa mudug iyo galguduud inta waa ka bixinaa Soomaaliya ka bixinaynaa halkaasaan ku sii jeednaa 3 sano iyo 4 sano dagaal sii marayaan wadnaa waxaan rabnaa jihaadka burcadbadeedda in adinkuna u soo jeesataan wada jirka waxay damceen oo isku dayeen inay ka qaraabtaan xeebaha iyo deegaamada isaga dhow Puntland iyo Galmudug iskaashi baan ka samaynay aragti baan ka yeelanay saaxiibnimaan ka samaynay waa col waa dulli dalka in laga xoreeyana waa banaanta markii dhaqankoodu dhaqan fiican maahan meelo badan inay shabaabka iska leeyihiin meelo badan baan ka soo ogaaday dhaqankoodu waa dhaqan xun dhaqan xumada in laga dheeraado shariicada islaamka wada xoolaha la soo dhacay gaal in la dhacaa iyo meel anagu hadeer dhac iyo burcadbadeed kama bixi karno markay ogaadeen shabaab in laga bixiyay mudug bay waxay rabaan inay ku noogu soo bedelaan maxay ahayd burcadbadeed waa ka dhiifoonnahay waa ku soo ilbaxnay waxyaalo badan baan soo aragnay waxa shaqada waa noo qaybinaysaan walaalihii jiraad aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa noo qaybinaysaan laga bilaabo saacadan burcadbadeed wixii adinkaa helay annaguna waxaan helnay shabaab waa noo qaybsha shaqada isdul saarnaan mayno waa ka wareejinaynaa waddanka Soomaaliya jahliga iyo dhibaatada loo geystay waa ka saaraynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada waa noo dagaal iyo argaxiso oo dhan